Wasiir waxaan ku weydiinayaa qaranka Soomaaliland baad u dhaaratay waxaad caawa bulshada aad u dhaaratay u sheegtaa khatar caafimaad intee leeg ay leeyihiin taawarada ku batay gudaha waddanka si guud uma muuqata inuu qaali maanta internetka waddanka yaala halka qiimaha internetka haday noqoto mukhtaar aad baan uga duwanahay wali waa qaali markaa ilaa hadda research cadeynaya oo oranaya waa laga helay qofkaas oo kansar u sababay ma jirto anteenooyinka ama taawarada waxaad u taqaanaan asalku maaha birta dheer taagan horta laakiin waxa weeye birta waxa ku xidhan ee sectoriska ah iyo BTS ka hoosta yaala birta lagu xidhay anteenada gudbinaya waxa uu yihiin mobilkaaga shidaalka uu ku shaqeynayo dunida meel kasta oo martana taawar baa ka taagan lacag baan ku shubtay telesom waxaan u hay macmiil habeenkii markaan lacag ku shubto aroortii waxaan ku soo toostaa iyadoo lacag iigu jirto way dad badan qabaan ma filaya way alla laga yaabaa in aroortii dan muhiim ah lahaa uguma soo tooso lacag ku jirto taana iga qanciyeen dhulna dadkani waxay aaminsan yihiin inay taawaradu dhibaato weyn ku hayaan caafimaadkooda wacyigelin ku filanna ma helaan marka maxay idinka qorshaysan in aad ku qancisaan dadka yani caafimaad ahaan yani aan dhibaato ku keeneen kiis baa dhacay isha boorama taawara oday baa u dhintay markii Itoobiya la geeyana waxa la baaray inuu genetic cancer uu lahaa family-giisu wasiir waxaad hore u sheegtay in aad wadaan qorshe lagu midaynayo nidaamka wada hadalka kaararka shirkadaha tusaale ahaan qofkii Samtel sita inuu telesom garaaci karo dabcanna wuxuu ku jiraa xeerka isgaarsiinta saafilayo qodobkaasi wali maydaan samayn ma macnayn kartaa sababtaadu samayn weydeen marka anigu ma arag qof la yiri taawar baa dilay shirkadina way joogaan oo mag laga qaaday iyaga inoo sheegi doonaa wali mag ma la idinka qaaday baan oran karnaa adeega in ay shirkadu wada hadli karaan ka qaabkii loo horin lahaa iyo sida uu dhacaysay farsamahaan maamul ahaan xisaab ahaan intaba gacantaan ku haynaa markay noo dhamaystirtaan way la soo wadaagi doonaa insha Allah laakiin ana hal su'aal baan si weydiinayaa saddexda shirkadoodba wasiirku waxa uu sheegay in ay dhawaan xeerar ka soo saari doonaan in shirkadaha la isu furo saddexdii shirkadood way maqlayaan Telesom Samtel iyo Samcable ma ogolaan doontaan marka xeerarkaasi ay soo baxaan in shirkadaha la isu furo imika waxa soo gashay waxa weeyaan wax la yiraahdo mobile money baa soo gashay marka lacagta ay daabacan karayaan ama lacagta isweydaarsan karayaan ilaa hadda lama oga dawladna waxay dawlad ku tahay waxa weeyaan in exactly ay lacagteeda maamulato waa imika saddexda shirkadood amba intaasoo shirkadood ma ogin maxay hay'adda exactly figure-ka ay habeenka daabacanayso marka wasiirka dawladda waxa laga rabaa inay soo bandhigto warbixin dhammaystiran